words in Somali. And then welcome. محمد هي مثل ما يقول طالما حفلتها مهن مثل يوسف وهي ومثل عالم كبير وبدأ يوسف هي هذا رمضان هي مدخل وتقريبا خريطة البلدية وكريم هي دكتور عبد الرحمن النادي هي وكان هو فاكتة حسن معلم بقولتي يقدر هكذا مع التلفزيون تقول الله وحن إن شاء الله سوينا لنا هذا عن سوينا كل ما عن هذا هذا المو دور بريئة أيوة من صدر بريئة وعلى كل قسم عطرة أتفاعل شغلها ما درجان كان في هذا الدور كثير شكرا إن شاء الله وهي بريئة كثيرة تسمع عنها سنة أو المحسنتين. هي جريدة اسمها اسمها أوسكار أحمد عبد القادر روح تاريخي قوي عن تاريخي قوي المحضر كوري كلمة بما شعب كلمة يكبدها وعليك تشغل محضور يحرية دي الركب نفهم بينوتها يكبدها وعن أكل عن يومتي عن مثل نعود لنا والله كل ما تعرف على الدوري السياحي البرازيلي يقولوا على شيء عنده نبضات في الحسين وجود التجربات اللي هو بيستي وعلى كل جزء أيضا تفكرنا بطل واحد على ذلك هدوك هو في سنة مدينة مركز شباب وين سوي توبة بالعوي كارعنا وحلقات مثل دراسة واشينيا ومرياش وحوها يلوينكي وقال الذكراء أولية موش المركز من قالي وحال أصلا طهي إنه عارك هي ما تأكل بطل دارة وتاريخ المركز كواد مياه حرة الدولة يعني دولة هدوك كده هم مرتين حرة الله سهل دارة ويديك بطل دارة وواحد اللي شوف كل كريم إنه عنا وحاول يعني بإله يعني حتى أسكال حرجين إن شاء الله مركز واحد الذين كمان بضعرها It's a great honor for me today to participate in this flag raising ceremony of the Honorable Somali people. It's a great honor also to participate in the Black History Day here, which we just witnessed before. It was very wonderful. With a meeting of all sorts of different communities from the first 19th and the newcomers up to today. And the honoring of the Somali Organic flag here today in Uganda Edmonton is a great milestone for Somali people in Uganda who cannot raise their voice, who cannot express their feelings, who cannot, decide for themselves what they want. So it's a great, we very much thank the Edmonton local government, General Edmonton, Alberta government, and the Canadian government for according the Somalis in this country that great privilege of having the freedom to express their feelings, their identity, and their existence. The same also, we also want all the other communities who are here, who also are taking part in this. And what we say is the raising of the flag here today, the raising of the flag here is an embodiment of the millions and thousands who actually have no say, no voice, no democratic rights. Our freedom has been curtailed, has been refused, who actually a big gulag in Ogaden. And this is a testimony of how their brothers and sisters have gone and stood for them, including also with the help of other, communities to raise their voice. So this flag is going to be raised for the voiceless people of Ogaden. So ladies and gentlemen, we'll be raising the flag right away. Bismillah. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta runtii waa maalin taariikh ah waa maalinta meesha joogtaan ay wada xasuusan doonto waa maalin aan ilaahay ka rajeynayno meesha dabo ee maanta taaganahay calanka aan saarayno guriga maarka dowladda magaalada Edmonton dalka gobolka Alberta dalka Canada in laga saari doono ciidii dahabkeed ee ku gudbay sidaan uu sheegay mudane Cabdiraxmaan waa calanka uu tuurtay maarka madaxa faraha badan marka waxaan rajeynaynaa oo ilaahay ka rajeynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ilaahay uu nooga aqbalo in laga taago ciidii hooyo saasaan ilaahay ka rajeynayna waa maalin taariikha ilaahay haynoo aqbalo aamiin tanaa noogu
waxaad si toosan nooga daawanaysaan warbaahinta soomaalida ogaadeenaya ka howlgashaha waddanka Canada Lace TV iyo waxaad si toosan nooga daawanaysaan Qorraxay Web TV waxaan ku sugannahay xarunta City Hall-ka ee magaalada Edmonton waxaa maanta halkan lagu saarayaa calanka ogaadeenaya calankaas oo ka taagnaan doona muddo bil ah waxaa halkan marti noogu ah gudoomiyaha hoggaanka arrimaha dibadda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane cabdiraxmaan sheekh mahdi waxaa sidoo kale marti noo ah gudoomiyaha hoggaanka warfaafinta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya mudane xasan macalin maxamed dhammaantoodna waxa ay ka yimaadeen oo socdaal uga yimaadeen magaalada ingiriiska ayay ka yimaadeen iyaga oo munaasabadan lagu marti qaaday inay ka qayb galaan 3 maalmood oo xaflada oo ka socon doonta magaalada maanta oo ah maalintii taariikhda dadka midowga loo aqoonsaday dalka Canada February iyo 2 maalmood oo berito oo ah maalinta Social Justice Forum oo cadaaladda oo laga hadli doono racism-ka iyo maalinta Axadda oo laga hadli doono human rights political Africa and human rights waxaa ku jirta oo kale ogaadeen human rights oo cabdiraxmaan sheekh mahdi ka noqon doono kino aad baa mahadsantihiin intaan dib u kulmayno waa aniga haddana waxaa la saarayaa calanka Ladies and gentlemen, we'll be raising the flag right away, and it will be done on our behalf. On behalf of the free people of the Somali people of Northern, will be done by the man. Please sing along with the national anthem. Those of you who know it, and those of you who do not, just remain with us. Thank you so much. فتحة مرة إلهي بكر خير You're all set? 1, 2, 3.
Thank you.